صدحدين النبي قال الشيخ عليه الصلاة والسلام يكو صعوتا أيا قد بوريد بين مركا أيا كجل بلد دحنا مروب أما عدو رجح وين بمركا بورتا كالسوشيال وضي لأن بورتا قد كي يجيبوا رجح حري وصدحن هل كاسي كوجران مركاسي عدكو أوجي ماشى مجرتو إلهي أمباكو عدك لكم أوجو مركاسي إصلاح لنا وحي سدادين ما أنت هلكا عيدني بدبادين كرتا مجرتو إلهي مويانه بل ولو عملك عاد السلالة هي عملك أسا مالنتا عاد إلهي درتي أقبتي وما ركتاني عمل صالحة وإخلاص أها عاد السلالة هي بل ما أنت كو الله بري بيدالك عملك هكابت بادية ما أنتس كيو الريبة مركا دعاء بلابي وعملك نوال بوقر الجوينا وإصلاح عمل كاسا مقبول هاي إلهي كأقبلي وإخلاصها كيو الريبة دعاء فرفرتو وحويري يا رب وذوقتهي لبا والد بان لها ودأوا وين لبا دا والد يكون عانها السيوم ورابيا موياني عيال كيكا عنتي عانا مسيين جرين هبين هذا كمدا حوله مركا يسوه يدين إن عانه وقصوا مالي أيان عانه لض الإمدي وحان أركي لبدي والده هرد أيان أركي مركاسان قرف كي عانه أيكو جرين كربانو قاضي عيال كيكي يا أولاد ديدين الجلبة هيستان وعيلهن آبا عانها النسي مركاسان كوري نسيني مايو لبدي دا والده هرد إياك أنسيا موياني إياك نكعيني مايو إلا إياك هرددك سوك عم موياني هبين كودن ما لدول تاغنا قرف كي عانها وبدكيغين اللغة هيستان واجي مركو دواada inuu bariyo ay labadii waalid hurdadii ka soo kaceen markaas aan qorofkii caanaha iyo kii siiyay kadib baan ubadkaygii siiyay ilaahow maalinka haddaan labadayda waalid aan sidaa ugu yeelay inaan adiga kugu raali geliyo ilaahow dhibaatada maanta aan ku jirno adaa naga saari kare ilaahow dhibta naga saar buu yiri markaas rida rabbi fi rida alwalidayn haddaa doonto ilaahay raali inuu kaa noqdo لبدا هذا والد رالي قلي الضون المير ويلي قبل متكا دونتا هو هدي لبدا هذا والد اي كو عرون ايام وعادو قاتا الهينا وكو عرون اوغو هدي لبدا هذا والد رالي اي كان نقدان الهي بر رالي كا ابي كدغنت لان مركا دغخي او دقاقي كي لباد با ليد هي ادغنا دعاء اسغنا دعادي بو بلابي يا ربي وحاجرتي قبل ان اديرتيا او ادو قروح بدن gabadhaas inta oo jeer baan soo kaansaday way iska kay diiday inaan xumaan u geysto bariyaha kamida abaar baa dhulkii ka dhacday anigoo hanti badan haysta ayaa xilligan abaareedku ku soo hagaagay ayadoo baahan bay ii timiday markaasaan ku idhi waad ogtahay inaan aad ku jecelahay bari dhawaad diiday maanta baahi baa ii ka keentay qolka ina geliyo dana waxaan doonaa kugu sameeyni kadibna waxaad doonto xoolo anigu waan ku siini baahidii ii keenta markaa gabadhii way iska ogolaatay baahi baa jirto abaar baa jirtay qolkii markaan la galay ee labadeeda lugood dhexdeeda aan fadhiistay halkaasina waa meel adag weeyaan ayay igu tidhi yaa ayuha rajul war addoonkan ilaahayow ilaahay ka boqo farjigayga xaaraan ha ku jabin bay igu tidhi xaaraan yaa markaan maqlay ilaahay ka baq markaan maqlay halkaasaan ka soo noqdoo ka kacay cabsidaadaan uga soo kacay maradii baan saaray iyadii dadna waxay xoolo doonaysay oo dhan ayaan intoon u buuxiyey ayaan sabootiyey haddii maalinka cabsidaada halka aan ugaga soo noqday ilaahow dhibaatada aan ku jirno maanta naga saar buu dhagaxiina u dhaqaaqay kii saddexaad baa lagu yidhi adiguna ducadaadii baa hadhee ducadaada bilow isaguna ilaahay buu baryo wuxuu yidhi yaa rabbi waad ogtahay addoon waxaan ahay dad badan shaqaalaysiin jiray dad badan baa ii shaqayn jiray maalin maalmaha kamida markaan mushaarkoogii aan siisiinayay mid kamida ayaa mushaarkiisii inuu qaatay iska diiday bari dambo abaari ay dhacday ayuu ii yimid uu yidhi war berigaa lacag baan kaaga tegay mushaarkaygiiyo mushqaayadaydiiyo isii markaasaan ku yidhi xoolaha maad arkaysaa waxaasoo geela waxaasoo lo'a waxaasoo adhiya adiga iska leh qaado markaasuu qaadan waayo wuxuu yidhi war maad igu dheeldheelaysaa abaar baa dhacdee oo adduunka waa la kala guuree mushaarkiina ay kugu lahaa iska kaysii markaasaan ku yidhi may kugu dheeldheeli maayo lacagtii berigii aad ka cadhooteed ka tegtay shirkaddayda kambanigayga ayaan sheerkaaga dhigon kuugu daray wallaahi xoolahaasoo dhan adaa iska leh kaxayso markaasuu farxay uu duceeyey yaa rabbi buu yidhi kiina
haddaan addoonka xaqiisii sidaa aan iskaga ilaaliyey anigoo adiga kaa cabsoonaya ilaahow dhibaatada adaa naga saari karee ilaahow dhibaatada naga saar buu yidhi dhagaxii u dhaqaaqay saddexdood iyagoo nabad qabay halkii ka soo baxeen ayuha almuslim diintaada hadday adduunka dusheeda wax ku tari weydo aakhare wax ku tari mayso ogow salaadaadu hadday adduunka ku anfacayn islaamnimadaadu haddaad adduunka ku cisoobayn iimaankaaga iyo taqwadaada haddaad adduunka dusheeda barakada iyo amni iyo cizi iyo gargaar ilaahay aad ku helaynin waxaad ogaataa diintaad haysatid waa suurada xaqiiqa maana diin xaqiiqaad doondoon waxa kulanka laynoogu qabanayaa laynoogu yeedhay wax kale maaha aniga iyo ininku waa wada simannahay waxaa suuragalay ininku inaad iga diin fiican tihiin waxay culammadu ayna leeyihiin diinta maanta waan haysannaa waa ku dhalana diinta islaamka laakiin kuma dhaqanno seen diinta markaa ugu dhaqannaa inaan diinteenna ku dhaqanno waxaan u baahannahay mujtamac inaan soo dhisna diiniya ilaahay waxa uu nagula xidhiidhayaa innakana waa diin waxaan ilaahay gargaarkiisa ku helaynaa waa diin waxaan nabadgelyada ku helaynaa waa diin waxaan ku guulaysanaynaa waa diin ummadnimadu waxay ku dhismaysaana waa diin amni iimaankana allah inuu ziyaadiyo cibaadadana allah inaga aqbalo kulankii awliyada allah ka dhigo dadka inaga bukana allah inoo shaafiyo waxay kurbaysan kurbada allah ka faydo muslimiinta mustadcafiinta la laynayna allah u gargaaro sala allahu calaa nabiyina muxamed